maadaama aad filan karto tiknoolajiyadda inay sii ballaaranayso oo marba marka ka dambeysa sii beddelaysa, suuragal ma ahan inaad qof keli ah ugu mahadnaqdo soo saarka internetka. Internetku waxa uu ahaa shaqo cilmi baarayaal iyo injineero kuwaasi oo mar walba soo saarayay astaamo iyo tiknoolajiyad cusub oo ugu dambeyntii ay ku midoobeen in ay noqdaan macluumaad sare oo aan ognahay maanta heerka ay joogaan. Si kastaba ha noqotee, qorshihii ugu horreeyay internetka ee wax ku ool ahaa waxa uu yimid 1960kii. muddo yar kadib, cilmi baarayaal ayaa soo saaray fikrad ah oo wax isku wareejinta, hab loogu talagalay gudbinta xogta tiknoolajiyadda oo hadhow noqon doonta mid ka mid ah dhismayaasha ugu waaweyn ee internetka. Nooca ugu horreeyay ee shaqayn kara internetka ayaa yimid dabayaaqadii 1960kii iyadoo la abuuray ARPANET oo ah shabakadda mashaariicda hay'adda iyo cilmi baarista. asal ahaan waxaa maalgeliyay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. ARPANET waxay adeegsatay xirmo isku beddelasho ah si ay u ogolaato kombiyuutarro badan in ay ku wada xiriiraan hal shabakad. 29 Oktoobar 1969kii, ARPANET waxay soo dirtay fariintii ugu horreysay ee isgaarsiinta mid ka mid ah kombiyuutarro kale. Kombiyuutarka koowaad waxa uu ku yaalay shaybaarka cilmi baarista ee California, ka labaad waxa uu ku yaalay Stanford. Fariintii la diray ayaa ahayd login. Waa mid gaaban oo fudud, laakiin waxa ay ku dhacday shabakadda cusub oo xiriirisa ARPANET. Kombiyuutarka Stanford wuxuu kaliya helay 2 xaraf ee ugu horreysay ee login. Tiknoolajiyaddu waxa ay sii waday in ay sii weynaato sanadihii 1970meeyadii kadib markii cilmi baarayaasha Robert Hahn iyo Fenton Cerf ay horumariyeen Transmission Control Protocol iyo Internet Protocol oo ah qaab isgaarsiineed loo dejiyay halbeegga sida xogta loogu kala gudbin karo shabakado badan. ARPANET waxa ay qaadatay TCP iyo IP bishii Janaayo 1983, halkaasna cilmi baarayaashu waxa ay bilaabeen in ay isku dubaridaan shabakadaha ay noqdaan internetka casriga ah. Dunida ayaa si toos ah markaa qaadatay qaab aad loo aqoonsan karo sanadkii 1990kii markii Tim Berners-Lee uu sameeyay World Wide Web. Inkastoo had iyo jeer lagu jahwareero internetka laftiisa, website-ku waa sida kaliya ee ugu caansan xogta looga helo internetka iyadoo loo adeegsanayo qaab website iyo isku xirnaan. Website-ku waxa uu ka caawiyay bulshada in ay iskula xiriiraan meel walba ay joogaan, waxaana uu adeegay si tallaabo muhiim ah loogu horumarin lahaa baaxadda macluumaadka aan badankeena helno maalin kasta. Intaas ayaanu kusoo koobaynaa macluumaadkeena ee ku saabsan ayaynu ugu hadlaynay internetka. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka.